maamulka guud ee naadiga dekada ayaa xaflad dhiirigelin waxay u qabteen kooxda kubadda kolayga ee naadigaasi oo sanadkan ku guuleysatay horyaalka heerka koowaad ee kubadda kolayga kooxaha iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin waa sanadkii labaad oo xiriir ay kooxda kubadda kolayga ee dekadaha ay ku guuleysanayaan horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya mas'uuliyiin maamulka shaqaalaha iyo bahda isboortiga qaybahooda kala duwan ayaa ka soo qayb galay xafladii lagu dhiirigelinayay ciyaartoyda naadiga kubadda kolayga ee dekadaha waxaa joogay maariyaha guud ee dekada xamar Ahmed Maxamed Washington mas'uuliyiinta qaybahooda kala duwan ayaa dardaaran u soo jeediyay kooxda kubadda kolayga ee dekadaha inaysan dadaalka halkaas ku sii yaraanin oo ay qaaradda Afrika gaarsiiyaan Cabdiqani Jeenyo oo horay u soo matalay kooxda kubadda kolayga ee dekadaha xirfadiisii ciyaareed ayaa waxa uu sheegay in ay jaanis fiican ay haystaan ciyaartoyda kubadda kolayga ee xilligan isaguna uu ciyaarayay kooxda dekadaha iyadoo aan wax mishaar laga qaadin jirin laakiin kooxdaasi ahayd kooxdii ugu horeysay oo mishaar isboorto uu ka qaato naadiga dekada runtii waa naadigii ugu horeeyay mishaar ka qaato oo aan noqdo ciyaartoy hal sano kadib ayaan jeeyin ku wareegay runtii waa meeshan kubadda ka bilaabay Allah u naxariisto Ibrahim Xisbiya haystay oo ahaa oday isboorti qofkii yaqaano naadiga dekadana 2009 sida xogeeyaha iyo dhalinyarada Cabdi Madaliif iyo ogiyay waxaan u waday wadanka Djibouti oo ay ku ciyaareen afartii kooxna ay ka qaadeen koobkii xogeeyaha guud ee guddiga Olimbikada qaranka Soomaaliyeed ee Goosa Maxamed Cabdo Xaaji ayaa isagana ka warbixiyay taariikhda uu leeyahay naadiga kubadda kolayga ee dekadaha isagoona sheegay in hore ugu soo ciyaaray naadigaasi waxaana dardaaran u jeediyay ciyaartoydii ku guuleysatay horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya hormar badan ka muuqda naadiga dekadaha runtii marka anaga dheereynay mushaarada ma qaadanaynin waxa dhib ahayd in la helo qabaha iyo maaliyada iyo batantaha lagu dheelaa dhib ahaan jirtay laakiin hadda waxa arkaysaa ciyaartooy qaadato mushaaraad basas tasiilaad badan ka muuqdo runtii taasna waxaan ku bogaadinaynaa maamulka dekada xamar waan rajaynayaa in horumarka meeshiisa ku sii socdo naadiga dekada kubadda cagtan waan rajaynayaa iyaga sanadka hadda soo dhaafay xoogaa hoos ay jireen waan rajaynayaa sanadkan inay kor u soo kacaan hadduu Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Cabdullaahi Nuur Cadaani ayaa waxa uu hambalyo u diray ciyaartoyda kubadda kolayga ee naadiga dekadaha oo horyaalka Soomaaliya iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin qaaday balse waxa uu sheegay in nasiib darro ay tahay in sanadkii hore aysan ka qayb galin tartamadii Afrika ee dibad ciyaartoy walbana uu ciyaaro inuu tartan caalami ah uu matalo kooxdiisa iyo qarankiisaba waxaana maamulka dekada uu kula daarmay inay ku dadaalaan in sanadkan aysan ka baaqan safaradii dibadda maadaama ay horyaalka Soomaaliya ay yihiin waxa nasiib darro ah ciyaartoyda waxay u ciyaartaa oo hiigsataa in ay ka qayb galaan tartamada caalamiga sanadkii hore sidaan oo kale xafladii loo sameeyay waxaana maamulka dekadaha ay balaqaad loogu sameeyay kooxda ka qayb gelin doonaan tartanka zoonka shanaad ee horyaalada sidoo kale mar labaad ayay haddana horyaal ku guuleysteen waxaan leeyahay kii aad balaqaadeen waaba dhaafneen kan yuusan dhaafin dhalinyarada si ay uga qayb galaan tartankaas Ahmed Maxamed Washington oo ah maariyaha guud ee dekada ayaa wuxuu ballan qaaday in kooxda kubadda kolayga ee dekada ay ka qayb gali doonaan tartanka zoonada ay Afrika maadaama ay horyaalka Soomaaliya ay yihiin gudoomiyaha Cadaani wuxuu ka dhawaajiyay kooxaha markay koob qaadaan waxa laga baahan yahay dibadda aadaan waa run sanadkan kooxda dekada way aadi hadii alla idmo taa laba kama jirto way aadi insha Allah waxaan kaloo rabnaa inaan u sheegno waxaan kaloo codsanaynaa ama haato naadiga dhammaan maamulka kubadda cagta Soomaaliya naadiyoodan waxaan codsanaynaa in ay laftikooda qayb qaataan waayo xiriiradu hadday dhisan yihiin kooxuhu ay dhismayaan abaalmarino kala duwan ayaa la guddoonsiiyey bahda isboortiga qaybahooda kala duwan ciyaartoydii ugu fiicnaa macallinkii ugu fiicnaa sidoo kale waxaa la guddoonsiiyey taageerayaasha qayb ka mid ah iyadoo ay guddoonsiinayeen bahda isboortiga qaybahooda kala duwan xafladda ayaa ku soo gabagabooday jawi aad u degan